shirkadda Gaafana ayaa waxa ay ka mid ahayd shirkadihii maanta sida ballaadhan uga qayb qaatay u dabaaldegga xuska maalinta 18 May ee maalinta ay Soomaaliland xornimadeeda heshay. Haddaba TV-ga Badda Cas 24 TV ayaa mar uu la kulmay mas'uuliyiinta ugu sarreeya shirkadaasi waxa uu wax ka weydiiyay siyaabaha ay uga qayb qaateen dabaaldegga xuska maalinta 18 May iyo adeegyada aasaasiga ah ee u qabtaan bulshada Soomaaliland ku dhaqan. Waana kuwan iyaga oo ka waramaya waxyaabaha ay qabtaan. Salaamna xuska 18 May awgi waxaanu idin leeyahay ku soo dhawaada Gaafana Company oo ka qaybo badan ka kooban sida lightka, fuel stationkii, supermarketkii oo qabowgii laga helayo iyo qaybo kale oo aad u badan oo aad u taqaanaan. sidoo kale waxaanu idin leenahay shidaalkii oo dalka ka go'an oo hayno markasta available 24 saac. farxad ku ciidan idin leenahay iyo ciid wanaagsan. dhammaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland aad ayaan salaamaya waxaan leeyahay munaasabad wanaagsan. waxa ku soo dhawaataan Gaafana Company waxaan idinku salaameynaa munaasabada ee dhilmeed islaanteeda idinku salaameynaa. waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan idinku soo dhaweynaynaa Gaafana Company haddaanu nahay mar walba waxaanu diyaar u nahay inaanu idin shaqeyno iyo soo dhaweyntiina hadday shidaal noqoto hadday wax kale noqoto mar walba gacmo furan idinku soo dhaweyn bisan iyo gawaadhida iyo waxaan ku orin meel kasto meelaha goobaha waaweyn ganacsiga oo si fiican oo qurux badan lagu labisay calanka waxaan u soo doonanay wala halkan inaanu sharaab ayaan u soo doonanay si aanu isugu qabajino maanta oo dhan ayaan xaraabaysanay sababtoo ah farxad darteed dabatana waan daalay waxaan doonanay markaa inaanu sharaab u soo doonano 18 May dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan si fiican baan u dabaaldegnay dabaaldeg aad iyo aad u qiimo badan madaxweynaha iyo dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku nool oo dhan aad baan u salaameynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dabaaldega qiimaha badan ee soo dabaaldegnay si aan sharaab ugu cabno aan ugu yara raaxaysano in yar sababtoo aad baan u soo daalay maanta oo dhan baan u dabaaldegaynay. Abdi Maxamed, telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 TV magaalada Hargeysa.